6 caadooyinka xun ee beerka waxyeeleeya. Beerku waxa uu qabtaa in ka badan 500 oo hawlo muhiim ah oo ay ku jiraan shaandhaynta dhiigga iyo habaynta nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah tamarta iyo koriinka jidhka, soo saarida xameetida si ay u caawiso dheefshiidka, iyo habaynta nafaqooyinka waxa ay door muhiim ah ka ciyaartaa dheefshiidka dufanka, borotiinka iyo karbohaydraytyada, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee caafimaadka iyo fayo-qabka guud. Si kastaba ha ahaatee, habnololeedka caadiga ah iyo doorashooyinka cuntada ayaa si tartiib ah u dhaawici kara beerka, inta badan iyada oo aan keenin calaamado muuqda ilaa waxyeelo weyn la sameeyey. Waa kuwan 6 caadooyin maalin kasta ah oo waxyeelo u geysan kara beerkaaga. Cabitaanka khamriga. Khamriga xad-dhaafka ah ayaa liiska ugu sarreeya. Isticmaalka khamriga culus ayaa ah sababta ugu weyn ee dhaawaca beerka. Khamrigu wuxuu horjoogsadaa awoodda beerka inuu ka saaro sunta, taasoo suurtogal ah inuu keeno barar iyo cudur beerka dufan leh. Fuuqbaxa. Fuuqbaxa waa dambiile kale oo keeni kara culays xad-dhaaf ah oo ku dhaca beerkaaga. Beerku wuxuu u baahan yahay biyo ku filan si uu si fiican ugu shaqeeyo. Cabitaanka biyo ku filan subax kasta waxay dejisaa codka xubnahaaga gudaha, oo ay ku jiraan beerka kaas oo soo saara dheecaano badan oo muhiim ah oo jidhka ah oo ay ku jiraan bil. Isticmaalka xad-dhaafka ah, cabitaanada tamarta, xitaa kaabisyada iyo geedo yaryar, ayaa sidoo kale culaysiya beerka. Hurdo la'aan. Inkasta oo laga yaabo in qaar badani aanay garanayn, daawashada bandhigga aad jeceshahay habeenkii oo dhan ama ku dhex wareegaya taleefankaaga hurdo ka baxsanaya ayaa laga yaabaa inay waxyeelo u geysato beerkaaga. Hurdo la'aantu waxay gacan ka geysataa walbahaarka oksaydhiyaha ee beerka, iyada oo la xiriirta dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan. 5 Cunista sonkorta. Cuntooyinka la habeeyey oo ay ku raran yihiin wax lagu daro iyo waxyaalaha lagu ilaaliyo iyo sonkorta, way ku adag tahay beerka in uu habeey. Qaadashada fructose ka sare ee ku badan cuntooyinka iyo cabitaanada sonkorta leh waxay khatar gaar ah ku haysaa beerkaaga iyada oo keenta cudur beerka dufan leh. Galmo aan ammaan ahayn. Galmada aan badbaadada lahayn waxay xambaarsan tahay halista in uu qaado cagaarshow, cudur beerka ah oo halis u ah dhimasho. Isticmaalka la'aanta tallaabooyinka ilaalinta xilliga galmada ayaa sidoo kale lala xiriiriyey dhimashada cudurrada beerka. Jimicsi ma jiro. Jimicsi la'aantu waa mid ka mid ah sababaha jidhkaaga u dada degdega ah. Xubnahaaga guduhu waxay si adag u shaqeeyaan si ay u habeeyaan cuntada aad isticmaashid haddii aanad raacin habka jimicsiga oo aad ku nooshahay nolol fadhiid ah. Jimicsi la'aantu waxay hor istaagtaa hababka sunsaarista dabiiciga ah ee jidhka, kaas oo beerku taageer.